haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ah aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaad tahay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aad ahaateed aad rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka jooga oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan. waa taqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi. fi suurati الracd, fi suurati اlisra, fi suurati اlanbiyaa, tawba, saba, saad, xadiid, xashar, saf, aljumca, ataqaabun, suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih. onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya. wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabixna waطayr. nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leeyay waxaanu u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray, aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya. bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaat الsabc wاlأrض waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura. cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira, toddobada cir iyo dhulba waxaa jira, iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya. wain min shayin laa yusabixu bixamdih, shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda. cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa, dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlأrض wالطayru saafaatin kul qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun. mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya. bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo. mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud uu warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy. ibnu mascuud wuxuu leeyay waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna, waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa. cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaana wa tacaala. wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan. waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray, sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamayo. wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay. nebigaanu la fadhinay annagoo xalqo fadhina buu leeyay, keli maaha. weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakrun wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay. ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa. dadka fadhiyo oo dhammina dhagxantaa uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlayay. intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar. abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururixi. weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi. abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar, markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen. dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahy. markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi. markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi. qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyahy, dadkaygii kale mau tasbiixsanin. idan xadiidkani waa xadiid culammadu ay sixadiisa tilmaamayaan. waxaanu sheegayaa in xataa qururux
ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadkao dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyoodo waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وحكروك بلابما سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحكروك بلابما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وحكروك بلابما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تضبط سورة ضاد شن سورة ضاد القرآن كم إذا حمد لله بلابما الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل النور والظلمات يعني أنعام يا بقرة يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا الصبا شن سورة ضاد القرآن كم دي يقولون وحيكون بالأمان محي حمد له هذا بقى إلهي سبحانه وتعالى تصبيح داس سيقة فعل ماضي يضع وصار ارتي أفرشير فعل مضارع يضع وصار ارتي لواتنشير صيغة أمر يضع سديدية طبنشير صيغة اسم فاعل يضع مرتين صيغة مصدر يضع لبقور صيغة اسم يضع أقوابي أفرتنشير يعني تدبا هي سديتا ميولاد بي تصبيح تكسار ارتي وصدح هي سديتا آيودات كجرة وتدبا هي أفرتن سورة ضاد قرآن كمدة in qur-aanka 114 suuradood 740 ka mid ah tasbiix ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun ala fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihiin culimadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda Allahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihiin intaas oo siyaqo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badan qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid ah tasbiixdooda ilaahay noo sheegay nabiyullaahi muxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxa ka mid ah in dadku tasbiixsadaan إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بين إليه النبي قال الله صادرين إله إلا الرميه ورسول كيسر للرميه إلا وينيه والله هيليه وقال الله تصبح سدما ليلي بكرة وأصيلا هاي علماء هذا لتؤمنوا بالله ولتسبحوه بكرة واصيلا بالله صادر النبي عليه الصلاة والسلام وحين هذا النبي الله موسى مركو ضلبضي ولالكي إن على النبي وقربه هاي هذا وانكي ولا لغو أنفع بدنا بالله هذا النبي موسى وهي ولالكي إلهي وحوقبر ينسن النبي لقربه نبي الله موسى ولالكي مركو ربي النبي الله قربه يا إلهي كأقبلي محاو كعلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري سببت طلبنا يا وامحي
كي نصبحك كثيرا بيري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلهي ولا الكينة رسول كدغو يقدر ويقول حوجي كي نصبحك سيان كوغو تصبيح سنو ويلا حوجي ذكر إلهي سبحانه وتعالى ربه ويقدر بولي نبي يونس نوين صامر تصبيح ديسي يين إلهي سبحانه وتعالى وحلقوا بدبادي قرآن كوحو الرمية نبي الله موسى ومركو يقول ربي أنكو أركو ربي يقول يا أركرمي سيدا بورتا ربي بورتا تجلي وسميي بورتي دكا نقطي مركو مير قصان نقضي تصبيح مقبل عبد فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تصبيح مقبل عبد الله نبي الله زكريا إلهي وحوي ديستين الملسيو سوى قبوبي ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeelb waa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ah kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kathiiran wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso ذكري مركي الله شيء تصبيح دوا كمد هذا نجار بالله سي شيء بيلين وواحد ليله وصبح بالعشي والإبكار نبي الله عيسى إلهي وحد الماما يا آخره مركي الله سوت تاجو إلا يرى هذا ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا أدتك كويري أنا جي هو يدي إلهي أنا قاعد أكتب وحوكب بلا بدون أبا إلهي لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك مكبل أبيا نبي الله محمد إلهي وحفرج قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تدك واحد كنت الأهدابا إلهي لي جد كي يدين كي يريه وكان إلهي بان يدين كي يريه أنا على بصيرة كسوغن أنا ومن اتبعني أنا جاي أنت الراعي وسبحان الله دهبل لي وما أنا من المشركين إلهي بان حمكه فيا أنت ربي عيبي سنة كمان بدي مشرك وعيب له إلهي صفات كي سياس مادي سيا مقعيدي سوديدي عبادته الله لسينا يديدي ربي بو عيبي ويا إلهي مركه حليه وحتى هو سبحان الله وما أنا من المشركين بل قرآنكو أنبياء الداية dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahay inama yu'minu biaayatina alladhina idha dhukiruu biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaj ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyay inama yu'min biaayatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyay waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya وكو إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدا إيغو كده هيا حمد قال له وان إسوينين كجر بالرب إليه مصالحين تقول ما يا إلهي ملائكته ينوغو تلمام إنا لنحن المصبحون بيت المامي يصبحون الليل والنهار لا يفترون وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم ملائكة إلهي وحد المامين التسبيح لازمان أهل الجنة ذاتك خير كبضان له يقول استي إلهي وحد المامين كل واغيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين حمدية تصبيح إلهي كقور رميه أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك يا رب كل شيء يا سبحانه وتعالى أيها الأحبة تصبيح له دين تمركا مقام سريك جرته ضد كان ضمبه وحيابا بدع لما وديبها الله يسكت ديين لا لدق علمه لكن واحد مدائن للراعية وحي دين تفرش ذاتك والصوفية وكم بالليلي دبتنا dadka cida ugu fiican fariidka ah waa ninka uu salaada yaraha leela markuu ka baxo
tira aan la garanayno faraacaynkaa la yidhahdo subxaan allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga. laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen, iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannahy oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato. nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abidar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi, nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah, waxyaaba alla u jeceliya ma kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi. haya noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi. kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdihi. xadiiska labaad abidar uu warinaya wuxuu leeyahy, nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu, warka maxaa u fadli badan? nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih, wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadih, oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih. idan ayuha alaxiba, tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa, cibaadaadkay culamadu yidhaahdaan, cibaadooyinka aan waktiga lahayn, shuruud lahayn. waxaa laga yaabaa salaad, soon, xaj, shuruuday leeyihin, waqtay leeyihin, waa la mudeeyey, waqtiyadaasubaa la sameeyey. ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay? cibaadada mutlaqa ah, fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto. waxaanu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati. haweentii wardiday uu nebigu ku soo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi, oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi, ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa, cadada khalqihi, tirada makhluuqaadkiisa, iyo zinata carshihi, iyo ridaa nafsihi, iyo midaada kalimaati. idan ayuha alaxiba, tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto. cumar bn lkhadaab maxaa laga sheegayay, walow kuntu musabixan la atmamtu. salaaddii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi, walow kuntu musabixan, haddaan tukanayo sunno, yacni haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay, walow kuntu musabixan la atmamtu. idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa. sharcigu intaba wuu soo arooriyey. shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa, waa inaga aayaadka soo aragnay, walaqad naclamu annahu yadiiqu sadruk bima yaquuluuna fasabix ilahay yidhi. nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxayn idhaahno, subxaana aladii sakhara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun. waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam, nicmo hadday kuu cusboonaato, falamaa afaaqa qaala subxaanak, wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay, dib buu u caafimaaday. waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak. waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa, fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi. waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa, qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun, ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant. waxay sheegaysaa in la tasbiixsado. markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy, man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, maalintii 100 jeer ninka yidhaahdaa dunuubtiisa waa la dhaafaa, wain kaana midlu zabadi lbaxr, saxiixeynku ku yaallay, xataa hadday xoorka badda leeg tahay, at least xataa haddaynu idhaahno sakaa'irta, oo sakaa'irta maxaa ka badan? subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo, ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa, imisaa khayr aad u malaynaysa? waagu markuu baryaaba inu war bilownaa,
haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama tv ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramaya ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad saqaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo